السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركلة سود وواضح أدي هذا وما تسنتيه. مقالكم وحرب أين ندخل وذاقه دي في لوتريجي السنة كان محاكو دعي وقت جيل حريصا لها ولا دافي دولة أمريكان كا مي أرنتا سيكا هذا الشيء وندل وذاقيا سيدو كلنا إلا إيو مركي ودقن قلي شرعي اللغة إنجليش كقفك وضعيا قوارد التراجيدة إن قصب لقدغي إن ويقانو إلا يحد إمي صدر أول ayaa laga joojiyay oo laysankii laga laabtay luqadda Englishka darteed oo hadda ku dhawaad muddo 4 bilood amarkaasi uu dhaqan galay iyo dawladda Mareykanka oo maalintii 18aad wali xiran ilaa ay haddana aysan muuqan saasaan dhawaan dib loogu furayo arrimahaas oo ayaan idin la wadaagayaa balse marka hore soo labadan maalmood waxa aad leysoo weydiinayay arrintii DV lottery xogaa horta maalmahan waa iska mashquulay raali ahaada DV lottery xilliga la xareysan lahaa waa la dhaafay caadiyan dawladda Mareykanku waxa ay ku dhawaaqdaa in DV lottery-ga waqtiga la xareysan karo uu furmayo iyo waqtiga uu xirmayo bisha September ee 9aad bishii la soo dhaafay dhamaadkeeda ayaa lagu dhawaaqi jiray inta badanna waxa uu furmaa horaanta bisha 10aad ee October oo hadda maanta 18 ilaa iyo waxa uu furnaadaa horaanta bisha 11aad ee November ee sanad kasta marka hadda sida muuqata website-kii rasmiga ahaa ee dawladda Mareykanka oo DV lottery-ga laga xareysanayay waxa wali ku jira taariikhda sanadkii hore DV lottery-ga 2026 waxa loo baahnaa 2027 ka taariikhda uu furmayo iyo taariikhda uu xirmayo in la soo geliyo mar ayaa waxa soo baxay warar ah 16 bishan inuu furmi lahaa ilaa $1 in lagu xareysanayo arrimahaas oo idil website-yada qaarkood ayaa qoraya laakiin dawladdu ma aysan cadaynin marka sida muuqata hadda dawladda Mareykanka sanadkan in wax DV lottery la xareysanayo in aysan jirin ayaa meesha ka muuqata maadaama waqtigii la xareysan lahaa uu furmi lahaa la soo dhaafay inkastoo waqtigii uu xirmi lahaa uu dhiman yahay laakiin lama filayo in dawladdu isbedel ay ku samayso oo November horaanteeda uu furmo December dhamaadkeedana uu xirmo mararka qaar waa ay dhici kartaa laakiin inta badan ma dhacdo marka maadaama hadda October ay gabagaba tahay ma laga yaabaa in November horaanteeda dawladdu ay tiraado waa furmaya December horaanteedana sidoo kalena amaba December dhamaadkeeda in uu sidoo kalena uu furmo ma December horaanteeda aan iraade marka sida muuqata hadda website-ka aan idin tusayo waa website-kii rasmiga ah ee DV lottery-ga laga xareysanayay sida idin muuqata waxa ku qoran entry period-ka for DV lottery 2026 waliba sanadkii hore ahaa sababta 2026 iyo 27 loo leeyahay waxa laga yaabaa dadku inay ku wareeraan hadda markii la yiraahdo DV lottery 2027 oo la filayo hadda in la xareysto macnaheedu waxay tahay 2025 la xareysanayaa 2026 dadka ay u soo baxanayaan natiijada lagu dhawaaqayaa dadkii calafkooda uu noqdana sanadka 2027 ayay ku imaan lahayn macnaheedu sidaas ayay tahay marka waxa ku qoran entry period-ka for the DV lottery oo diversity visa 2026 ka programka inuu yahay inta u dhaxaysa October labadeeda sanadkii la soo dhaafay 2024 inuu furmayay November bisha 12aad todobadeeda 2024 inuu xirmay wali marka tii sanadkii hore ayaa ku jirta wax isbedel ah dawladdu ma aysan ku sameeynin oo taariikhda cusub ee October inuu furmayo bishan hadda aynu ku jirno 2025 ilaa November inuu xirmay bisha socoto oo 12aad sanadkan 2025 dawladdu wax isbedel ma aysan ku sameyn horey waxaan dhowr jeer idinku sheegay Trump markii xilka uu la wareegay hadda qaxootigii waa kii joojiyay waxyaabo fara badan waa kii hakad geliyay marka DV lottery-gana inuu ku darayo horey ayaan dhowr jeer idinku sheegay marka sida muuqata Trump 4 sano uu joogo sidaasi ayaa DV lottery-ga looga sabrayaa mise waxaa jiri doonta in sanadaha soo socda uu ogolaado in DV lottery-ga mar kale dib loo xareysan karo arrintaasi ilaa hadda lama oga dawladdu waan joojinay gabi ahaan ma aysan dhihin waan fasaxnayna ma aysan dhihin marka yamta ayay gashay dawladda Mareykanka arrintaasi marka sida ay noqon doonto sanadaha soo socda ayaan eegi doonaa horta sanadkan ma sidaasi ayuu ku gudbay mase wali raja ayaa jirta oo dawladdu waxa laga yaabaa November horaanteeda in xooga ay tiraado waxyaabo kale aan ku mashquulsaneen waliba waxa uu ku soo aaday hadda bishan October oo ayna maanta 18ka koodeedii waa tii labada xisbi ay isku raaci waayeen miisaaniyadda dawladdu ay ku shaqeynayso oo dawladda shutdown ay noqotay marka ma shutdown-kaas saameeyay maadaama shaqaalihii dawladda federaalka inta badan wasaaradihii shaqada laga diray mase dawladdu waxayba doonaysaa gabi ahaanba 4 sano oo Trump joogo in sidaasi DV lottery lagu joojiyo
waxa macquul ah in arrintan shutdown-ka ay saamaysay oo dowladda Mareykanku maadaama ay gabi ahaanba xiran tahay oo wax shaqo ah aysan jirin oo wasaaradihii kala duwanaa in ka badan 4,000 oo shaqaalihii dowladda federaalka shaqada laga ceeriyay in arrintaasi ay sabab u noqon karto in gabi ahaanba DV lottery sanadkan aysan suuragal ahayn in la xareysto haddii marka sanadka dambe uu isbedel dhaco oo xilli dowladdu aysan xirnayn oo shaqada dowladda hakad aysan ku jirin uu ku soo aado wayna arki doonaa haddii dowladda Mareykanku ay ogolaato laakiin haddii ay sanadka dambe ay sidaan oo kale ay noqoto oo gabi ahaanba isbedel lagu sameyn waayo website-ka oo la soo gelin waayo xilliga uu furmayo DV lottery-ga iyo xilliga uu xirmayo macnaheedu waxay tahay maamulka Trump uusan doonaynba in dad loo ogolaado in bakhtiyaar nasiibka ama DV lottery-ga ay Mareykanka ay ku imaadaan marka tillaabooyinkaasi kala duwan ayaa dhacay wararkii soo baxayo ahaa 16 bishan inuu furmayay $1 in lagu xareysanayo website-yada qaar ayaa qoray laakiin dowladda Mareykanku wali arrintaasi gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo xil saaran ma aysan ka hadlin marka sida muuqata sanadkan wax DV lottery la yiraahdo ma jiraan haddii ay dowladda la furo oo hadda inta bishan aysan dhammaan ay labada xisbi isku raacaan miisaaniyad dowladdu ay ku sii shaqayn karto inta aan November la gaarin waayna arki doonaa haddii dowladdu ay ogolaato November horaanteeda inay furaan December horaanteedana sidoo kale ay xiraan laakiin aniga sida la muuqata maadaama hadda October ay gabagaba tahay in aysan jiri doonin in DV lottery dib loo xareysan karo ay u muuqata arrintaasi DV lottery-ga haddii intaasi aan kaga gudbo waxaan ognahay Trump bishii February waxa uu saxeexay in luqadda Ingiriiska ay tahay luqadda rasmiga ah ee Mareykanka Aprilna waxa uu soo saaray sharci wadayaasha gawaarida taraagada inay qasab tahay luqadda Ingiriiska inay yaqaanaan oo ay akhrin karaan ku hadli karaan calaamadaha wadooyinka ku dhagan ay fahmi karaan qofkii aan aqoonin in laga bilaabo 25 bishii June ee 6 in aan loo ogolaanin in gaari taraaga uu wado qofka luqadda Ingiriiska aan aqoonin hadda waxaa soo baxaya in ilaa iyo bishii June hadda ku dhawaad muddo 4 bilooda 5,500 oo leesinka CDL-ka watay oo gawaarida taraagada waday in gobollo kala duwan lagu joojiyay isla markaana la yiri gaarigan ma wadi kartaan lagana joojiyay leesinkoodii oo suspend laga dhigay iyadoo arrintaasina ay darawaliin fara badan shaqo la'aan ay ku riday sidoo kale waxaan ogeyn wasaaradda gaadiidka in qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida California Washington State New Mexico ay qasab uga dhigtay in luqadda Ingiriiska goobaha wage stationada hadda meelaha qaar gobollada Republicaanka ciidamo ICE ayaaba ku suganba oo qofka marka la ogaado inuu sharci darro yahay leesin traagna uu wato waa la qabanayaa ICE ayaaba horey looga diibaya marka waxa ay wasaaradda gaadiidku ay uga digtay gobolladaas in xitaa dadka sharci darrada ah leesinka aan la siin karin oo non domicile-ka oo gobol aysan deganayn ka qaadanaya leesinka arrintaasina waxa ay wasaaradda gaadiidku ay sheegtay gobollada aan sharcigaasi u hoggaansamin in lacagta dowladda federaalka ay siiso gabi ahaanba laga jaran doono digniino ayaana la siiyey sidoo kalena waxaa jirta in ganaaxyo ay la kulmayaan darawallada iyagoo gaariga laga dejiyey mar kale iyagoo wada la arko luqaddii Ingiriiskana ku dhaca mar kale arrintaasi sidoo kale in darawalladu ay ganaaxyo la kulmi karaan lacageed arrintaasi sidoo kale waxaa muuqanaysa hadda 5,500 oo darawal ku dhawaad muddo 4 bilooda in taraagii laga dejiyey iyagana tira yar ma aha dowladda Mareykanku wali sidii ayay u xiran tahay labada xisbi waa isku afgaran lahayn sanadka waxaan filayaa tira ka 10 jeer ayay u codeeyeen miisaaniyaddii aqalka wakiiladu ay meel mariyeen laakiin wali dimuqraadiyiintii halkoodii ayay taageen waxay leeyihiin kaarka caafimaadka ee Obamacare dadka uu ka dhacayo December sanadkan dhamaadkiisa oo lacagaha caafimaadku ay ku qaaliyoobayaan iyadoo xisbiga Republicaanku arrintaasi aysan waxba ka qaban annaguna ma ogolaanayna in dowladda dib loo furo muddadii ugu dheereed oo dowladda Mareykanku ay hakad ku jirtay xilligii hore ee Trump oo madaxweynaha ay dhacday 35 maalmood ayay dowladda xirneed hadda 18 ayay maraysaa mana muuqato saasaan labada xisbi hadda miisaaniyada isku raaci karaan mid waliba midka kale ayaa wali uu ku eedeynaya inuu mas'uul ka yahay in isagu oo dowladda inay xiranto oo shaqada dowladda istaagto laakiin shacabka Mareykanka markii afti laga qaaday xisbiga Republicaanka ayay mas'uuliyadda dusha ay ka saarayaan waxay leeyihiin aqalka cad madaxweynaha Republican ayaa jooga sanadka iyo aqalka wakiiladana aqlabiyadda Republican ayaa iska leh marka maadaama aqlabiyadda yar xisbiga ah haddii ay la xaajoon waayeen mas'uuliyadda iyaga ayaa dusha u ridanaya labada xisbi mid kastaba shir jaraa'id ayuu maalin kasta qabanaya waxa uu leeyahay
maanta maalintii 18aad ayaa la marayaa maalin heble ayaa la marayaa waxaana mas-uul ka ah shaqada dowladdu inay xagad ku jirto xisbi hebel iyo xisbi hebel ayaa la isku eedeynaya shaqaalaha dowladda federaalka oo hadda madaxweyne Trump uu shaqada ka ceerinayna garsoore federaal ah ayaa xagad geliyay waxa uu yiri shaqaale kale shaqada lagama ceerin karo marka arintuna halkaas ayay maraysaa labada xisbi wali halkoodii ayay kala taagan yihiin shaqada dowladuna wali sidii hakad ayay ugu jirtaa wayna arki doonaa inta aysan bishan dhammaan haddii labada xisbi ay isku raacaan miisaaniyad waxay republikaanku ay leeyihiin dimuqraadiyiinta maadaama Obamacare December uu dhacayo bal hadda dowladda aan sii furno ilaa iyo December aan sii wada xaajoono waxayna dimuqraadiyiintu leeyihiin filinkaas hore ayaa u soo daawana dhowr jeer ay arrintaas nagu badadaaliseen marka ma yeelayno hadda waa in la wada hadlaa oo heshiis la gaaraa kadibna loo codeeyaa dowladdu inay sii shaqayso aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono iyo nabadgelyo